بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan marka hore aan ka xunnahay wixii ka dhacay deegaanka Walaweyn masiibada ahayd ee dadka dhiigooda xaq la'aanta lagu daadiyay dhan walba waan ka xunnahay waan cambaaraynayna in khaasatan dadka sida sifada xun loo dilay waan ka xunnahay marna raali kama noqon karno ninkii la gubay waan ka xunnahay raali marna kama noqon karno qof kasto muslim raali kama noqon karo iyo waxa jiray dad 8 qof ah oo dhalinyaro ah ee duurka loogu tagay oo geedahooda iska guranayay mootooyinkooda iska watay in carabka laga jarjaray indhaha laga soo bixiyay xaniyaha laga jaray bac loo geliyay la gubay sababtaas ayaa keentay marka dambe ninkan in la gubo taas sabab u ahayd laakiin waa laga fiicnaa taas maadaama ay dhacday intan laga dabageeyay ma ahayn waana ka xunnahay aadan ugu xunnahay laakiin waxaan leenahay maxaa sabab wax kasta sabab ay leeyihiin sababta keentay in la isdiro waxa keenay siyaasiyiin soo safriyay dhalinyaro dhiigooda dad kalena dhiigooda inay baabi'iyaan ku tala galay cadeysteen aan la xishoonin xataa ninka leeyahay xildhibaan jeesow waa macruuf meediyaha ku jirta meel kasta ku jirta uu cadeystay ciidan buu Hirshabeelle ka keenay uu leeyahay waa macaawisley markaas uu isbaaro u dhigay halkaas si ay ugu noolaadaan laano ninka duuso deegaan ahayn waa in nolol loo helaa isagana mishaar uma haysa darteed wadadu isbaaro u dhigay isagoo xildhibaan qaran ah ayuu ciidanka isbaaro u dhigay wuxuu yiri waa macaawisley shabaab ay la dagaalamayaan shabaabka ma degmada Walaweyn u jooga subxaanallah waxa ku xigtay nin xildhibaan Hirshabeelle ah kala dire leeyra sidoo kale in Walaweyn yimid soo ciidan wato waliba cadeeyay inuu dagaalamayo uu magaaladan qad cagaaran dhigi doono su'aasha la isweydiinaya waxay tahay Walaweyn ma Hirshabeelle laga xukumaa maxaa hadii uu leeyahay deegaanka wax ku leenahay dadka gaal jecel ee deegaanka wax ku la caawi oo dhahay deegaanka Walaweyn aan nahay maxaa loo waayay maxaa Hirshabeelle intaad ka timaado u leedahay Walaweyn wax ku leeyahay su'aash kale la isweydiinaya waxay tahay hadii koonfur galbeed wax ku leedahay koonfur galbeed Walaweyn miyaa laga xukumaa koonfur galbeed dadka deganba waxay ka doontaan baydhabo ay tagaan Walaweyn maxaa yaala wax yaala ma jiraan waxaan leenahay marka beesha gaal jecel oo walaalaha nahay oo muslimiinta islaamnimada naga dhaxayso waxaan leenahay waad ogtihiin wax naga dhaxaya ma jiraan waxa kale oo jiray oo ku xigay nin oday oo nabadoon sheeganayay isagana hadlay shir jiraa'id qabtay yiri tilaaban qaadayna wiilkeena waa nagu filan yahay bilaa caleek wiilkaaga haduu kugu filan yahay kugu filaado laakiin dad walaalo oo muslimiin oo meel degan inaad weerar ku soo qaado la dagaalanto dhiigooda aad banaysato maxaa laga helaa ilaa hadda waa yaabagna oo garan laana anaga haddaan nahay dadka deegaanka ee Walaweyn ee shan caleemo la yira waxaan nahay dad nabad jecel waxaan nahay dad wax soo saar jecel waxaan nahay dad ay leeyihiin sac iyo sabuul yani beeraan leenahay xoolaan leenahay deegaanaan nahay dad qaxo guura ma nihin cidna dulmi kuma doonano laakiin wana la soo doonanaya waxaan baaqu dariyaa dhamaan gaal jecel wax garadkooda iyo culimadooda meel kasta joogaan war dadkan siyaasiyiinta ah ee wiilashiina dhiigooda raba inay wax ku helaan war wiilashiina dhiigooda meel aan waxba oolin lagu daadin oo ka qabta dadka iska qabta bilaa calaykum iska qabta waxaad ogaanaysaan idin cadeynina annaga deegaankaasaan degannahay weligeena deganeyn aakhir baan ka aadi karnaa meel kale oo aadeen male laakiin cid aan doonanayno ilaahay abuurtay oo aan gardarro ku doonanayna ma jirto malana loo soo heli karo inta dagaalada ay dhacayaan weligeen deegaankan isbaar maana dhigan anaga weligeen xoolo dad maana soo dhicin weligeen xuduudan kama aanan bixin laakiin meeshana meel aan ka aadna ma jirto ninka gurigiisa dii loogu yimaado inuu dhinto sharciga ogolaanay dhibaatada maanta waxay maraysaa 20 meeyo ay maraysaa nin Hirshabeelle laga keenay inuu Walaweyn ku dagaalamo oo maanta ay ku jirto caruur ku jirto sabana guri lagu dhuftay lagu baabi'iyo lagu laayo waxaan u maleynayaa aqligana ma ogolaanayo Soomaaliyeed waad arkaysaan wax meesha ka dhacaya waad u jeedaan waxaan idinka codsanaynaa in arinta magaraysan nimanka reer gaal jecel loo aqli celiyo waxba ka qaldan ma naqaan wax ka qaldan dawladda federaalkana sidoo kale waxaan leenahay anagu shacabkiina nahay dadkii deegaanka nahay dad dibad ma nihin dadkii wax soo saarayaan nahay beeraha wax soo saarka dadkii caanku ku ahayaan nahay in la ku soo duulo nala baabiyo inay nagu fiirsato waxaan filayna ma aha oo nala ku fiirsado waxaan filayna ma aha waliba ay ciidamo baladoog la ka soo baxaan ay tuuto wataan ay tilaabo ka fuliyaan magaalada Walaweyn oo dagaaladii qayb ka noqdaan oo dawladana nagu fiirsato waxaan filayna ma aha dawladana waxaan ka codsanaynaa haddana shacabkeeda kamid ahayna hadda waa war kala gooni way haddaan kamid nahay waxaan u baahanahay ammaan in nabad aan u baahanahay oo deegaankeena ku noolaana beeraheen aan ku qodano ayaan u baahanahay taada kale waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed
iyaguna waxaan ka codsanaynaa meeshaan waad arkaysaan maamul kalaa soo duulay oo cadaystay oon qarsoonayn beel maaha xildhibaanaha heer qaran iyo heer gobolaa socda maxaad u fiirsanaysaan gobolkan miyuusan ka mid ahayn koonfur galbeed miyuusan ka mid ahayn maxaa qaldan dhammaantii marka warka waxaan kusoo gabagabeynaynaa oon caddaynaynaa inaan ka xunnahay dhibaatadii dhacday mar walban aan ka xunnahay aanan raalli u ahayn wax dagaalan inaanan diyaar u ahayn laakiin inaan isdifaacno caqligii iyo sharcigaana siinayo inaan qaxno ma suurtagelayso intaa dagaalaa socday oo soomaaliya isdilaysay weligeen maanaan qaxin cid kastoo noo timaadaana ilaahay baan u tala saaranayna iyagun baa naga tagay anagu waxaan ogolnahay inaan daafeed ku noolaan ama aan qabri galno wax ka dhexeeya ma jiraan arrintaa waxaan leenahay soomaali weynna waxa ka ogaato reer gaaljacelna waxaan leenahay arrintaa wax ku ogow waxaan leenahay iimaanka ha ku galo wixii ilaahay ku siiye allaha kuu barakeeyo kuguma haysano hirshabeelle meeshaad joogto kuuma soo socono walaalow macaanu nadaa oo dhibaatada naga daa oo dagaalka aad nagu khasbaysa naga daa hadalka intaasan kaga baxo wasalaamu calaykum